Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayla dhugunsidayaal hiraaban fayla waliba noola dareertana baydhabo media wararkan ka weyn hiraabnimaadan waliba ku mid ah kooxyooyinka Manchester United iyo Villarreal finaalka Emery Osa ka boori Villarreal in yada jibida caqabado kale ee finaalka Europe League qusay Ole Gunnar Solskjaer kalsooni ka qaba kulanka Manchester United iyo Villarreal Karim Benzema ayaa sheegay in uu hindho ka hay ka guuleysi koob oo hiranya finaanada ka astaysan xulka qaranka ee Faransiiska muddo kureed markii uu gadaalan ka nagadi kooxda saaxiibadiyada ka cusubta YouTube ka subscribe nin sargam baleelka furay sacad mar walba adan la dareerta wararkan ka dambeeyay ciyaaro kulan xiiso leh lagu dhafiladay in uu dhamar doono kooxyooyinka Manchester United iyo naadiga Villarreal garoonka la ka magacaabo Stadio Ergi de Casc waliba uu sameeyay ka dheelo doonaan lamadan kooxood iyo ku gudubeen ilaa iyo kooxyooyinkii in ka dambeeyay ka hardamaya waliba ciyaartooyada lagu wada sugday in laga taahano xiiso leh wararka lamada macalin markii qobadan shirka jaraa'id iyo ku hadleen waliba yeedanaayeen to macalinka kooxda banoonka lote ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer uu sahay ku hadlay xaaladda kooxda Ole Gunnar Solskjaer geesiyada kumad ee hamiinada anka weyn ee Manchester United ka tilmaamay koobka Europe League waliba uu fadaanay inuu ku hogaamiyo kooxda intiyada handata horyaalka shan koorey muddo 4 sanadood arbaciyada taasoo wajahaysa kooxda Villarreal waliba tababaran ee khibrada macalinka isku leh ee Emery kaasoo Europe League iyo ku horseeda doonaan koobkii ka dambeeyay United waliba yada xilli ciyaareedkii 2017 Europe League ku hogaamiyay macalin Jose Mourinho markii Ajax lamiyoone ibriyada ku badeen gegada Scotland iyo anagadaas kooxda shanaad ka guuleysata dhamaanba 8 tartan ee UEFA guuldaradii Sevilla xilli ciyaareedkii hor waliba yeedaha ay saddexaad sanadkii guuldarada semifinalka ee Ole Gunnar Solskjaer tan iyo markii uu bedelay macalin Jose Mourinho bil December 2018 laakiin wadar ahaan waliba yeeda siiyad iyo nation iyo kubadiyana Roma taasoo iyo ka gudbeen ka dambeyntii kulankan ka dambeeyay Europe League Ole Gunnar Solskjaer sadeli goolkii guul finaalka Champions League 1999 ka yeeray anas waliba iyo hayna habeen weyn waliba ninagada korte ee jaranjara walbadan nin faylaasi korta mustaqbalka ifo waliba yeesamay korte kooxyooyinka ku yar da'da talada ahaan nunsiyan waa koox on red and sun lama sanadood ee la dhaafi waliba on rajayeen intan yeedanagata bilow ka guulateedaan ciyaartooyda waliba iyo saxiixiyeen Manchester United saaxiibo dhow leeyihiin maamulka waliba saxiigaasi tinan horseeda doona ee koobabka ka guuleysashada waliba aqbala doona loolan inuu kulkulno koox fayla kaas oo yeeda in yar haysadaan isla markaasna markale doon fiiri doona cadaadiska ninku kooyo Emery macalinka kooxda Villarreal ee tartanka la gala doona macalinka Manchester United Ole Gunnar Solskjaer iyo waliba uu siina dhanaga kiishay sheegay in aaminsan finaalka Europe League in la dheelan Manchester United fursado kooxdiisiyada ka muuji karto kooxyooyinkan ka sareeya qaaradda usoona ka boori in iyo qaadan tilaabooyinkan ka dambeeyay ka guuleysiga koobka Emery waliba uu jibinay caqabadooyinka suran semifinalka tartanka Europe League waliba uu dareensanaa inuu ka faanana tala ahaanba laakiin saata waliba uu sameeyay mas'uuliyad inuu qaana tilaabo kale sababta waliba uu baahana inuu sii wadna jaranjarada caqabadooyinka Emery yase sheegay in shirkadda jaraa'id Emery ka sheegay shirshay jaraa'id kulankii arbaadi kalsoonida gaban waliba uu fadaanay inuu ka raaxaysan finaalka laakiin waliba uu dareemanay inuu ka guuleysadaan usoon eri magaalada Ganyin qonton kun oo qofood Villarreal waliba yeeda hay'adda lan aqoonsiyo dalka Spain ilaa iyo dalacsiinta la Liga markii in koreeytii 1998 tan walaay ku dambeey waliba uu sii xoojiyaan boosaska kooxda ka sareeyay dalka waliba uu sugaanay koobka weyn ee weliga rajo weyn in uu ka guuleysan isla markaasna manata uu jeysana ama banaanka oo nambalna markii uu markaas aan fiirin heerarka kooxda
naadiga waliba yeeda ka nolola daqiiqada weyn walina yeeda saasoo kale baahanta daqiiqad walba in yeeda sameeyta dadaalada TDN ka dambeey si yeeda si muujida heerarka shaanka faylahaya marusu ku hadalay naadiga Manchester United macallin Emery ya xaqiijiyay in nagadaas top balaayin ku horkooyayaan naadiga United kumida kooxyooyinka anka ka guuleysiga laakiinse ciyaaryahanada weyn iyo taariikhda badan waliba yeedan in horseeda doonto inuu markale ismuujino oo ku horseedaan koox magac iyo maamuus leh Karim Benzema oo ku tirsan naadiga Real Madrid sheegay in uu diirada saaro koobus la gaado xulshay qaranka Faransiiska kureed markii uu Sri-Lanka weerarna kulamada xulshay Euro markii sanadood uu kulamo heer caalami ah kooxda aan ku midnagana xidiga Walter Kale husband laki waliba uu ku moganayay Les Blues tan iyo 2015 sabab la xiriira doorkii shay la sheegay in uu ku qaaday sharqoolkii madowaaye waliba uu dhaafay guuli Faransa koobka adduunka 2018 hambahowka finaalka Europe League 2018 manka keeshe Benzema 33 sano jaro in uu koob la qaado kooxda Faransiiska iyo seeri uu soo markaas ka darsaday in uu sakraji wani in waqti yar oo dheer andakanaadaas in uu koob markale kala guuleysada kooxda Benzema oo 27 gool siiyay kulmood caalami ah uu kooxda ansafaday iyo Salzburg hore lagama dhaway ciyaaryahanada ka faylay xil ciyaareedka ajaanibta ka nool Faransiiska xiriirka dalka markaas iyo la sameeyaan waliba uu ka goolka badan Real Madrid uu dheeli 29 gool xil ciyaareedkan uu dhaafay 20 gool horyaalka 8 xil ciyaareed tan iyo markii Ronaldo uu ku tabijo kooxda 2018 Benzema isdaba rooga waliba uu eeday jaray Deschamps tababaraha naadiga xulka qaranka Faransiiska iyo xiriirka banoonka lote ee Faransiiska kaasoo markii la ku reebay 2018 Euro-gana qeybaha taxasuusan dhakanaadaasa laakiin waliba sheegay in shal dubanaashigaasay tiyadaha tito iyo markale dabkasiishadaas heerka rabitaanka kiishay ee ka guuleysiga kooba Moncoine in aan kooxda Faransiiska intaas qof aadi ahaan aan rooga qoto dheer booskana kuma ganay laakiinse xilligan waliba aan diirada saaray ka guuleysi koob Faransiiska ya bilaabay ololaaga Euro 2020 intiininkeegi dhageystayaal barnaamijka hiraabnimadan ee falanqaynta ciyaaro ee Baydhabo Media intireedan kulamaana ko kan limada saasiyoona amaana Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.